بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أوناكسن داود يالكسو دوادا جنالك يوتيوب كأصلح أبا صافي. ما أنت وحن إذا صوبان ديغايا خسادي هامان وكما هامان ولا لهيغا مربتان إناد أغاتان هامان قفك أوياي فضلا وليس أمرا فيلمك هموتينينا دحنها كوخابانينا daawada filimka bilowga ilaa iyo dhammaadka adinka ayaa dib u ogaan doontaane qofka uu yahay Haamaan iyo qisadiisa. walaalahayga qisada haddaba aan bilowno. Haamaan wuxuu ahaa wasiirka Fircoon, la taliyaha Fircoon. Haamaan wuxuu ka mid ahaa gacan ku dhiglayaasha Fircoon. فرعون هامان وحو دهي إلهي آيديس أيا نوغو شيغي إلهي وحو دهي وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هدب هامان إلهي آيديس وحو كشيغي لحمل أيا مقعيس كجرا هامان أنغو آيدها أنسو كوبينو. فرعون هامان wuxuu u dhahay Haamaanow waxaan rabaa inaad ii dhistid sar oo aad iyo aad u dheer. kadib Haamaan wuxuu dhisay sar oo aad iyo aad u dheer oo daruuraha gaarayo. sartaasna waxay dhiseen reer bani Israa'iil. maadaama Haamaan uu ahaa wasiirka Fircoon dhismaha iyo wax walba Haamaan ayuu qaabilsanaa. Haamaan intii soo kaxeeyay bani Israa'iil kulli waa ku shaqaysan jiray. dhammaantooda waa garaaci jiray. si xun ayaa u geli jiray. masaarida wax ma yeeli jirin, laakiin dadka la adoonsan jiray waxay ahaayeen bani Israa'iil. ilaa heer oo la gaaro reer bani Israa'iil raggooda in la dhameeyo oo la dilo oo naagahooda la iska daayo. Haamaan waxaa ka mid ahaa markii oo riyada loo fasiray Fircoon oo dhahay wiil ayaa iman doonaa, wiilkaasni boqortinimadaada ayaa dhaxli doonaa. midkii oo ku dhiirgeliyey Haamaan ayuu ahaa oo Fircoon u dhahay wixii oo wiil dhalanayo dhan hala baabi'iyo. dhiirgelintan waxaa u sameeyey Haamaan. Fircoon dhiirgelintan Haamaan ayuu u sameeyey. kadib wixii wiil oo ay dhashtaan dhan waa la baabi'in jiray. kadib Fircoon iyo Haamaan ayaa ku heshiiyey in Fircoon uu sheegto alle uu dhaho ana rabbukum alaclaa. alle awood u leh inuu oo wax abuuri karo Fircoon, waxna dili karo. Haamaan wuxuu Fircoon kula heshiiyey inuu beenta u marag furo, suuqana u gelin doono in Fircoon oo ilaahay yahay. Haamaan ayaa la kaashtay. Haamaanba ayaa ra'yigan siiyey Fircoon inuu ilaahnimo oo sheegto. Haamaan suuqii ayuu geliyey. wuxuu dhahay rabbigiina maanta laga bilaabo waa Fircoon. haddaba beentii markii ay suuqa ku faaftay, ninkii oo Fircoon la dhihi jiray waa iscajibiyey. wuxuuna aaminay inuu ilaah yahay. wuxuuba ilooway in Haamaan yahay ninkii beenta ay isla wadeen oo isla heshiiyeen. kadib Fircoon Haamaan wuxuu dhahay Haamaan maalintii adiga aan ku abuurayay abuuristaada dhib ayaan la maray. kadib Haamaan intuu qoslay wuxuu dhahay Fircoonow ma ilowday beentan adiga inaan soo dhoobnay oo aniga aan ku dhahay ilaahnimo sheego. kadib maalin maalmaha ka mid ah haweeney ayay imaaday. waxay dhahday Haamaanow wasiirow aawi Fircoon boqorka Fircoon erigeyga ayaa dhintay, waxaan rabaa erigeyga in la soo nooleeyo. kadib Haamaan wuxuu dhahay Fircoon wuxuu ku mashquulsan yahay geelka sida loo abuuraayo. geelka ayaas abuurooyaa ee keen erigaaga
kadib waxaa siiyey eri oo kale hoo erigan ayaa lagu soo nooleeyey erigan qaado kadib haamaan wuxuu u imaaday fircoon markii uu soo kacay waana hurdaaya isaga wuxuu dhahay fircoon habeenay ayaa ii imaaday waxay ii dhahday erigeyga ayaa iga dhintay inaa laysoo nooleeyo ayaan rabaa kadib fircoon waa uu naxay wuxuu dhahay haamaan waxba ha nixinee fircoonoo aniga ayaan gabadhaasi xaliyey eri kale ayaan siiyey waxaan dhaha hoo erigaa iska qaado fircoon wuxuu ku mashquulsan yahay geelka ama hasha sida loo abuuraayo fircoon wuxuu dhahay haa waa runtaada waxaan ku mashquulayay hasha si loo abuuraayo ma fududo mani sahlano way dhib badan tahay kadib haamaan waa qoslay wuxuu dhahay fircoon dadka kale beenta qaadsii laakiin aniga ma i qaadsin kartid haddaba waxaa la isweydiiyey haamaan magaciisa runta miyaa mise naanayskiisa waayo waxaa la yidhay sida oo fircoon kisra najaashi iyo boqortooyada kale oo lagu magacaabo magacooda runta ma ahan waa magac naanays fircoon magaciisa runta ma ahan wax oo masar soo maraan boqortooyo dhan waxaa la yidhaahdaa fircoon haamaani waa naanays waa wasiirka boqorka marka haamaan magaciisa runta ma ahan waa magac oo wasiirka dowladeedka ah haamaan wuxuu ahaa nin aad iyo aad u kibir badan dadkani ku shaqaysan jiray wuxuu ahaa nin oo laga cabsado maadaama uu ahaa wasiirka fircoonni wax walba oo samaynaayo waxaa la tashan jiray haamaan maxaa yeelay haamaan wuxuu ahaa wasiirka ugu horeeyey ee fircoon markii uu dhahayey haamaan وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب waxaan rabaa guri oo dheer in lay dhiso gurigaasni in lagu dhiso dhoob oo tinaar la geliyey dhoobkaas oo la dubay waxaan rabaa sartaas inuu noqdo mid aad iyo aad u adag haddaba waxaa la isweydiiyey haamaan sidoo ku dhintay markii oo fircoon badda la qaadsinayey asaga ma ku jiray mase ma ku jirin dad waxay leeyihiin markii oo fircoon oo soo baxay fircoon iyo askartiisa ciidankiisa kulli waa la baabi'iyey mid la dhaafay male kulli badda ayay laqday haamaan wuxuu joogay gurigiisa dadna waxay leeyihiin haamaan gurigiisa ma joogine ee asagane askarta oo fircoon ayaa la jiray fircoon iyo haamaan iyo askartiisa ayaa la jiray markii ay soo raacayeen nebi muuse calayhi salaam muuse markii baddii oo furantay oo muuse oo gudbay isaga iyo asxaabtiisa dadkiisa markaasaa ilaahay badda isku keenay waxaa ku jiray haamaan halkaas asagani halkaas ayaa ku dhintay dadni waxay leeyihiin asaga ma joogin xagga gurigiisa ayaa joogay marka sida oo xaqiiqda ah ilaahay baa og allaahu aclam walaalahayga qisadii haamaan halkaas ayaa nagu dhammaaday qisadaani waxaa idiin soo habeeyey walaalkiina aslax abasaafi waxaana lagu soo habeeyey stuudio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadawa walaalahayga fadlan walaysa amran waxaan idinka codsanayaa inaad i gaarsiisaan 500,000 subscribe insha allah sidaas iyo nabad gelyo